رئيس الوزراء هوري الصومالية محمد عبد الله فرماجو أيا مقالة لندن لوغو سميي مناسبة حق ورئيسي إيو سودوين waxaana halkaas ka hadlay aqoon-yahano waxgarad iyo siyaasiyiin ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee wadankan UK waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida tan xardi ku codsanaya aqoonta kartida dhaqaalaha inta aad la joogtaan qurbaha ummadii Soomaaliyeed qurbaha badankoodu soo badatay intii aragtida badneeda wax taqaanay ama wax ku baratay halkan ilaa la garab istaagtaan u heelisaan ummadda Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed dhulka Soomaaliyeed iyo ubadkiina meel ay ku noqdaan oo u hagaagsan oo la mid ah kanaynu joogno kala sii wanaagsan oo ah mid ay iyagu leeyihiin oo cidna ku sheeganayn aan ku qaloonaynin aan ku dareemaynin inay dal shisheeye joogan sidii loo hagaajin lahaa taana falowgeedii baan haynaa waxaana u ah xisbiga Tayo Hormuud waxaan idinka codsanaynaa inaad taageeradiina muujisaan biidnillaahi kariim waxaan leeyahay maxamed cabdilaahi maanta farmaajo waa Soomaali haddaan nahay wuxuu ahaa ninkii askariga mishaarada uu qoray nin waliba uu og yahay dayartiyo caruura low ya dugsiga geeya muqdishana dhamashaad ka dhiga dagaalka nafoobay daqarada ku dhacaya low nabarka daweeya oo waxaan doonayo yaa low qaranka noodaya waxaan leeyahay duco calamaysan oo caadil ku aqbalay culimo awdiinka waliyaasha caabudka cashara ku tufeen oo amaantaada ku cilcisheen calool iyo laab ka timid caawa iga gudoon Somalia needs change. It is time for change. Aan ku heesno it is time for change. Waxa la joogaa waqtigii isbedelka. Soomaaliya waxay u baahan tahay hogaamiye daacad waa mahadsantiin. Waxaan rabaa inaan u tacsiyeno kulligeen aan faataxadan u marno dhalinyaradii naga baxday oo iyagoo tahriib ah ay doonta la qalmatay kan ugu weynaa uu ahaa soddon jir raadinayay annaga intaan haysano runtii tiiraanyo iyo naxdin weyn iyo ummadda Soomaaliyeed ku ahayd waalidiintoodii iyo dadkoodii samir iimaan Allah ka siiyo naxariistii Ilaahay iyo jannadiisana Ilaahay ha siiyo waxaa la rabaa dalkaas idinka iska leh madaxdu idinka idin shaqaysaa ka soo qayb gala electionka مرشحين نقطة dhaqaalana ku bixiya candidate-ka aad leedihiin waa wanaagsan yahay maxaa yeelay wixii hadda waqtigan ka dambeeya Soomaaliya insan kuma jiri karto Soomaaliya waxay u baahan tahay inay adduunka ka mid noqoto oo la tartanto oo caruurteena aysan badda ku dhamaanin oo kuwa halkan joogay xabsi aysan ku dhamaanin Maxamed Khadar Home Cable TV London